asalaamu calaykum daawadayaal kusoo dhawaada qacmo furan iyo qalbi saafiya. waa mar kale iyo qormadeennii goormay kuugu darayd. waa qormadii labaad ee aanu idiin soo gudbino muddo toddobaada. qormadeennan labaad ee ciwaankeedu yahay goormay kuugu darayd waxay maanta ku saabsan tahay sheeko uu ka sheekeeyey ama ku dhacday nin Soomaaliyeed oo ku noolaa marka hore magaalada Muqdisho balse maanta ku nool magaalada Hargeysa. ninkan oo la yiraahdo Cabdille Maxamed wuxuu ku noolaa xaafad ka mid ah xaafadaha ay ka talin jirtay Al-Shabaab. waxa weeyaan xilligii Sheekh Shariif waa 2009kii. dowladii Sheekh Shariif ayaa ugu yeedhay goor habeenimo ah madaxtooyada, dabadeetana waxay ku tiri waxaan doonaynaa inaad nooga soo warbixiso dhaqdhaqaaqyada ka socda xaafadda aad ku nooshahay ee Al-Shabaab joogto ama ay ka taliso. waayahay buuli mushaar fiican oo loo qoray. kadib xalay markuu madaxtooyada joogay maanta wuxuu yimid xaafadiisii. xalay madaxtooyadu hoyday saakuu kasoo kalahay gurigiisii buu yimid sidiisii caadigii buu iskaga joogay. kadibna duhurkii salaadii duhur ayuu tegay masaajidka oo uu awalba ku tukan jiray. salaadii markii laga baxay isagoo iska wardiyaya ayuu inan dhalinyaro dhoola cadeynaya u yimid. wuxuu weydiiyey xalay toole wixii madaxtooyada ka dhex qabanayay. dabeetana wadnaha haan leekaaday naxdin iyo afariir su-aalo ay Al-Shabaab joogahooda hayaan ayuu ka afuufay. ninkii baastoolad ugu jirtay jeebka oo halkaa gashanaa ayuu dhinaca ka tusay odaygii. waxaanu ku yidhi soo raac haddii kale halkan baan kugu khaarajinaya. meel bannaan uu la tegay dabeetana uu wareystay. markii uu wareystay ee ay warbixintii uu siiyey odaygii iyo wuxuu madaxtooyada ka doonay wuxuu inankii yaraa ku yidhi laba mid dooro, inaad halkaa kugu khaarajiyo iyo inaad annaga iyo iyagaba u shaqeyso double agency inaad noqotid basaas laba dhinaca laba geesooda. tan dambu iska doortay oo ah inuu labada dhinac u shaqeeyo balse iyagu wax mushahar ma siinayaan. dabeetana muddo bila oo uu cabsi iyo hurdo la-aan ku dhacday ayaa kadibna wuxuu doortay tan dambe ee ah inuu labada dhinacba ka shaqeeyo double agency noqdo. kadibna wuxuu ku yidhi waata dowladdu mushahar kuu qortee xaqii yaraa mujaahidiintana iska bixi. micnaha kolley waa cashuur si kale weeyaan. waayahay buu kuri markaa ma idinkaan idin keena halkiin geeyaa buu kuri cashuurta. kiilaaba ugu jawaabay qofka kuugu horeeya ee ku weydiiya uun cashuurta u dhiib haye buu yidhi. ninkii muddo bila ayuu cabsi iyo qaadiro hurdo la-aan murugo warwar ku noolaa. bishii markii ay dhammaatay ayuu mushaharkii u doontay. inan dhalinyaro ay isxigaan madaxweyne Sheekh Shariif ayaan mushaharka bixin jiray. kadibna mushaharkiisii baa la siiyey. odaygii markuu istaagu dhaqaaqis yidhi ayuu inankii mushaharka bixinayay ku yidhi dee xaqii yaraa mujaahidiintana kaama reebin balse kasoo reeb waa $25. odaygiibaa argagax iyo anfariir ku dhacay. uu yaabay dhigbo jaan bay leekaatay oo Al-Shabaabta la raadinayaa bay dowladii ku dhex jirtaa soddon fiila Soomaaliya dhex joogtaba madaxtooyadii meel kale ma jirta. dadka qaar Al-Shabaab waxay haystaan dad gaar oo gadhaa dheer iyo wax war maaha. Al-Shabaab kan kula fadhiya kula qaylay kan Al-Shabaab tacaayay maqaaxida kula fadhiya waa Al-Shabaab kan kale waa markaa waqtiga sirdoonkeeda Al-Shabaabna aad buu badnaa. 25 intuu degdeg u dhiibay halhaleen albaabkii uga baxay. dabeetana tigidh buu goostay uu baxay Nairobi uu tagay. Nairobi markuu tagay hotel Soomaali leedahay ayuu soo degay ninkii. kadibna markuu shandadii iyo alaabtiisii uu dabaqa sare xagga sare soo dhigtay qolkii ayuu soo noqday oo uu isir xagga hoose wax ka soo cuntay. xagga hoose uu soo cunto doontay restaurant-ku ku yaalay. markuu cuntadii cuntay uu farxasho lacagtay bixis leeyahay maqalkii dul taagan yahay ayay namadii maqalka mid ka mid isagoo gacanta dhigta u saaraya ayuu ku soo dhaweeyay. markaasuu ku war shaqadii aad mujaahidiinta u haysay maxaad uga soo carartay. wixii cunay uu soo matagi gaadhay naxdin darteed ama kaag iyo anfariir kale oo halkan ma joogaan oo waayo haddaba meel bay ka maqan yihiin Al-Shabaab.
ninkii uu iska hoteelkiibuu deg deg usoo amabaxay, tigidh kale ayuu soo goostay, sidii ayuu kusoo galay hargeysa. hargeysa ilaa waxay ugu dambeysay 2011 isagoo ku nool bay ugu wardambeysay. hadda moogii inuu ku nool yahay. ninkaasina sidaa waqtigaas xilligaas ay igu daraa buuri noloshayda, oo isagoo xataa hargeysa joogu baqayay, waayo nimankani meel kasta sirdoon bay kuleeyihiin. intaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa. waa inoo iyo qormada xigta ee ah goorma ayay kuugu darayd. bahdii farshaxan media oo idin leh, waa bahdii farshaxan media oo idin leh nabadgelyo nooli kulantay. ama ogaanin inaad like iyo share iyo subscribe tirahdid waa shuruud, waa haddii aad ka heshay sheekadan.